السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan ka salaamay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacdi salaam, waxaan ka hadlaynaa maanta magaalada Lascaanood, waxyaabaha ka dhacay oo ka socda iyo mashaakilka iyo dagaalada. waxaan leeyahay in badan baa dagaal lagu soo jeeday, Soomaali kusoo jeestay waqti dheer, 30 sano muddo ku dhow kusoo jireen dagaal. marka maanta inay bilaabanto laga bilaabo dagaal halkaas oo qabiil laysku soo baxo, aad baan uga xunnaa. waxaan soo jeedinaynaa in Somaliland ay iskaga baxdo halkan intaan dhibaato inta ka badan ka dhicin. inay iskaga baxdo oo ay dadka u tudho, dadka waa inay tudhaa. in qabiil isugu hanjoogo, qabiil isugu soo baxona arrin aad iyo aad u xun weeye. waxaan leenahay la qaboojiyo, Somaliland ha ka baxdo meesha, dagaalada hala joojiyo, oo dadka islaameed hala kala dhex galo. waan leenahay la kala dhex galo dadka islaameed, yaan la isku eegin dadka, oo yaan colaad xun oo tii hore u dhacday ka badan iminka maxay ahayd loo bilaabin. dadka hala joojiyo, oo colaadda hala yareeyo, oo hanjabaadda hala yareeyo. maanta dib laysugu noqdo qabiil in laga gudbo baanu moodaynay, runtii wax laga yaabo weeye. Somaliland waxaa leenahay halka ay fidmadu ka bilaabantay, maxay ahayd waa in aad ka baxdaa, maadaama dadkaasi soo taagan yahay. dadkayga waa markas la leenayaa, oo dowladdii waxay madax difaacaysa, maxna nagama difaacayso. maxay ahayd haddaan iska dayn lahayn markii hore iska badaayo, markii hore waad iska joogteen. laakiin mar haddii amnigood khatar galay oo yiraahdeen ma adkaysan karno, mana joogi karno, saa kuma noolaan karno. waxaan leenahay Somaliland iskaga baxa, idinkoo u danaynaya dadka islaameed oo dhiigoodu daadanayo. dhiigga islaamku waa xaaraan buu ka yahay, waa xaaraan, waa la xaaraantinimeeyey in isdilaan. marka wanaaggiina wuxuu ku jira idinkuna inaad si dhab yar uga baxdaan. colaadaha iyo qabaa'ilka laysku soo baxay in la joojiyo, baan leenahay la joojiyo. wanaagga iyo maslaxadda danta ku jirtaa. dagaalku dhibaato waxaan inoo horseedi maayo. marka dagaalada ma dhacaan, dhibka hadda ka jira waddanka waa sii badanaya. aakhira seegna waaye, wax wanaag oo laga helayaa ma jirto. waxaan leeyahay dagaalada hala joojiyo. isaaqna annaga waxaan u aragnaa inaanu iminka israacsanayn. isaaq israacsanayna ma jiro, oo maxay ahayd dagaalka iyo xumaanta isku raacsan. maamulkaasaa dhibka wada iyo wixii la socda oo la dhinaca. marka waxaanu leenahay halaga waantoobo, hala joojiyo. ummadda maxay ahayd Soomaaliyeed oo kalena waxaan leenahay dadka hala kala qaboojiyo, hala kala dhex galo. dagaal faa'iido u keenaya khasaare mooyaane ma jirto. dadka waa in la kala dhex galaa, dadka waa in la kala dhex galaa, yaan la daawana loo aamuso. dagaalku waa inuu istaagaa. dowladda meesha kama jirto, xagga Soomaaliya dowladda kama jiraan. wax hadlaya suuq oo basaga adag, waxa baarlamaanka fadhiyana waa tan maqlayno lahaa waa joojiyeen sheekadii. madaxweynuhuna waa nooca aynu arkayno. dadka waa in lala hadlo, dagaalka la joojiyo. Somaliland waxaan kusoo jeedinaynaa, kula talinayaa meesha markay taas ka bilaabantay waa inay ka tagtaa. dhib baa ka iman kara ka badan intaas.